agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee Somaliland ayaa maanta waxa uu magaalada Berbera xilkii ugu kala wareejiyay isuduwaha cusub ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee gobolka Saaxil iyo dhakhtarka xoolaha ee dekedda Berbera waxaana munaasabada xil wareejinta ka soo qayb galay isuduwihii hore wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee gobolka Saaxil iyadoo dhawaana loo magacaabay agaasimaha waaxda caafimaadka ee wasaaraddaasi ganacsatada xoolaha dhoofisa iyo shaqaalaha wasaaraddaasi ee gobolka waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay maamulaha kalluumaysiga ee gobolka Saaxil agaasimaha arrimaha bulshada dawladda hoose ee Berbera iyo qaar ka mid ah ganacsatada xoolaha waxaana ay soo dhaweeyeen mas'uuliyiintan cusub ee xilalkani maanta la wareegaya sharafay tahay inaan ka soo qayb galo xilkan cusub iyo kala wareejintan cusub saraakiisha cusub ee xilka la kala wareegaysa ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay uu waafajiyo sida wanaagsan ee khayrka qabta waxaan kala u sii mahadnaqaynaa isuduwii hore xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay isuduwaha cusub ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee gobolka Saaxil Cabdikariin Ciise Cismaan iyo dhakhtarka xoolaha ee dekedda Berbera Dawlad Maxamed Faarax insha Allah sida la sheegay waxaan ahay dhakhtarkii cusbaa dekedda shaqaalaweynaha waxaan ku rajaynaynaa inaan wada shaqayn fiican iyo khayr aan naga filataan shaqaalaha inaynu gobolkeena Saaxil horumarino iyo wasaaraddan leeno ogmaday insha Allah meesha waxaan wada joognaa inaan wada shaqeyno meesha waa xil weeyaan xilkuna waa wax adag weeyaan waxa adagna qofka waxa ka soo bixi kara qof dadka la wada shaqeeya qof keligii ma shaqeyn karo waxa la yiri fariya fool ma dhaqdo marka anigu kaliya ma wadi karo hawsha si fiican ma sameyn karo haddii idinku aydan ila shaqeyn waxa iyaguna halkaasi ka hadlay isuduwihii hore wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee gobolka Saaxil imikana ah agaasimaha waaxda caafimaadka ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee Somaliland Dr. Axmed Cabdilaahi Ismaaciil iyo agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee Somaliland Dr. Axmed Cali Maax warbixinta halkan haddii aan sirada bilow waqti badan bay qaadanaysaa waayo labada page uga meesha yaala way buuxaan waxa kale oo halkan ammaan uga soo jeedinaya dhakhaatiirta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga waxa kale oo halkan mahad uga celinaya ciidanka ilaalada xeebaha oo hormoodka ka yahay Taliya Haarun waa ciidanka ugu badan ee qaybta kalluumaysiga marka la yiraahdo nala hawlgala dawladda hoose iyana wada shaqayn gaar markay noqoto xagga nadaafadda gobolka Saaxil waxa ka shaqeeya 76 shaqaalaha waa bayrool 76 kaasi mushaarka ay qaataan waxa noogu soo kordhaya oo bishii hore imtixaankii baasay 15 isugu jira xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga intaasna way noo soo kordhaysaa 43 waxa weeye qaybta xoolaha 24 waa qaybta kalluumaysiga marka intaas waa inta rasmiga noo shaqeysa waxa jira shaqaale aan mushaar qaadan waa 43 gobolka Saaxilna qaasatan wuxuu noqonayaa gobolada ugu horeeya maadaama uu marayo marinkii xoolaha laga dhoofiyo xafladana waxay daaran tahay inaanu axmedna la sagootiyo lana soo dhaweeyo dhakhaatiirta cusub ee loo soo magacaabay iskuduwaha iyo maamulka caafimaadka dekedda saa darteed iyagoo waxaan leeyahay saad maqlayseen axmed muu ahayn isduwe ee wuxuu ahaa oday beere xaliya arrimaha kala duwan marka doctor Cabdikariin waxaa laga rajeeyay axmed looma bedelin inuu hawshiisa gudan waayo laakiin sunnaha dawladda ayaa waxaa gabagabadii halkaasi xilkaasi rasmi ula wareegay mas'uuliyiinta cusub ee dhowaan loo soo magacaabay wasaaraddaasi ee gobolka Saaxil sidoo kalena waxaa shaqaalaha wasaaraddaasi ashaada sharaf ay ku maamuseen isuduwihii hore wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee gobolka Saaxil Cabdirasaaq Qaasim Jaamac wararka telefishinka Saab magaalada Berbera.